السلام عليكم ورحمة الله صاحب يال ولي وحانو dhexda kaga jirnaa formski baan dhexda kaga jirnaa iminka waxaan tusi doonaa form isticmaalaya get method maadaama ay saa tahayna waxaan sameynaynaa page kale ayaynu macluumaadka halkan aynu gelino geyn doonaa haddii aan leydno okay waxaan sameysan doonaa php deeni caadiga ahayd kadibna waxaan sameynaynaa intaynan halkan gelin html caadi aan isticmaali doonaa html ayaan isticmaali doonaa waan save gareynayaa kan waxaan u bixinayaa tusaale ahaan students.php ayaan u bixinayaa marka waa form caadiya student.php save baan leeyahay waayahay markaan saa u save gareeyo waxaan sameynayaa formkaygii ayaan soo qaadanayaa form ayaan sameynayaa formka waan xidhi waa kusoo noqonayaa laakiin haddana arrin kale aan formka ka leenahay sababtoo ah form yaro dheer baan sameynaynaa markii dhood formku yaro gaabnaa formka markaan halkan imaadno sidee buu u dhacayaa actionka iyo methodka iminka waxa weeyaan waa get weeye methodkiisu get weeyaan actionka halkee buu ku shubayaa ficilka waa page kaloo aan sameyn doono oo magaciisa la yidhaahdo home.php kaasaan ku shubaynaa oo macluumaadku halka ayay kasoo bixi doonaan haddaba ogaada halkan waa methodkii halkanna waxa meesha ficilku ka dhacayo maaha pagekeenan sida kii hore php self ayaan isticmaalaynay laakiin hadda wuxuu ka dhacayaa meeshan kale ayuu ka dhacayaa saa arkaysaan waxaan soo qaadan doonaa labelka ugu soo horeeya name kadibna laba dhicood aan qoraynaa inputkiisu waa text box input typekiisu waxa weeyaan waa text weeye magacna waan u bixinaynaa namena wuu doonayaa namekan haddaan doono waxaan isaga bixinaynaa magac waan soo xidhaynaa marka inter ayaan leenahay okay markaasaan sameynaynaa haddana wixii la dhihi jiray mid kalaan sameynaynaa oo la yidhaahdo email oo kalaan sameyno email ayaan sameynaynaa email isna waxaan leenahay inputkiisu waxa weeyaan waa sidii kii hore waxba kaba duwana waa text kadibna namekiisa waxaan u bixinaynaa email mar walba nameka waa isaga bixinaysaa haddaad rabtaan emailka mail kaliya ka dhigaysaa magaciisa iskuma xidhna nameka waa muhiim koodhka hadhow marka lasoo akhrinayo ayuu muhiim yahay button baan u baahannahay buttonka isaga marka kaliya waxaa la qoraa typekiisu buttonka waxaan qoranaynaa input weeye waa input typekiisu laakiin wuxuu noqonayaa submit ayuu noqonayaa okay so waan xidhaynaa marka waan save gareynaynaa inuu shaqeynayo ayaan eegaynaa marka koowaad formku halkan aan imaadno waxaan leenahay localhost aan ii soo dhaweeyo student.php okay inter baan leenahay okay wuu soo baxay wakaas laakiin inay saa isu daba yaalaan ma doonayo waxaan doonaya inay hoos yaalaan so let me go back to my code and come here to edit it aan edit gareeyo halkan waxaan sameynaynaa br tag waxaan gelinaynaa br tag halkan lafteeda waxaan gelinaynaa br tag aan edit gareynaynaa moogtahay aan soo kicino okay waa kan aan refresh gareyno saasaan rabnaa inuu saa isu hoosgalo br tag ayaan hadda u sameynay wakaa okay aan celino marka waxaan tegi doonaa page kale ayaan sameysanaynaa pageka kale isaga waxaa la yidhahdaa home waa kaa aynu macluumaadka halkaasaan u raraynaa macluumaadkeena halkaasaan geysanaynaa so control m baan leeyahay pageka waan save gareynayaa waxaan ku save gareynayaa home.php save baan leenahay pagekaasaa markayn tusayaa koodhka aan ku qorayno okay waa yahay si caadiya ayaan waxaan isaga qoranaynaa html furan iyo html xidhan ayaan sameysanaynaa code yar aan badnayn ayaan qoraynaa
koorkaan samaynayno ma badnaba waxaan leenahay waxaan leenahay soo dhawow okay laba dhibcood marka qoraynaa laba dhibcood ayaan qoraynaa kadibna halka waxaan ka furaynaa php baan ka furaynaa waxaan leenahay waxaa soo saartaa php halkan ku xidhaynaa waxaa soo saartaa ayaan leenahay waxaan u yeedhaynaa marka get waxaan leenahay waxaa soo heshaa waxaa soo saartaa $sign dash get waxaa soo saartaa namekii soo saar marka waxay isweydiinaysaa waxa weeyaan nameka lasoo qabanayo halkuu yaalaa student imo magac baa inaga inoogu qoran kaa saa daraadeed kaasaan soo qabanaynaa kaasaan soo qabanaynaa homekeenii aan tago halkaa waxaan gelinayaa quotation magac suu u qoran yahay waan xidhayaa halkan aan imanaya waxaan leeyahay labadan haddaan doono br baan u dhexaysiinayaa waa break tag inter baan leenahay halkan aan imanaynaa waxaan leenahay emailkaagu waa laba dhibcood baan leenahay sidoo kale waxaan u qoraynaa php echo waxaa soo heshaa $sign get marka ayaan kii kalan qoraynaa waxaan leenahay waxaa soo heshaa mail ayaa la dhahayay kan haddaa arkayseen wuxuu ahaa magaciisu mail ayuu ahaa kadibna waan xidhaynaa kadibna kaasaan kusii xidhaynaa intaa markaan dhammaystirno oo labadooda ay isku xidhan yihiin oo labadaba aan save garayno andhaana save all qaar baa inoo save garaysnayn soo ma baahnin ka aan taaganahay save keliya dheh waxaan kusoo noqonaynaa areadan kadibna waan buuxbuuxinaynaa hadha markaan buuxbuuxino kadib waa inuu nagu dhahaa soo dhawow oo bagekii kale uu aado oo ku qoro jaamac baa lay dhahaa emailkeyguna waxa weeye waa jam@gmail.com kadibna waxaan leenahay submit kadibna wuxuu soo saaray soo dhawow jaamac emailkaagu waa jm interway so marka bajajkaad aragtaan ee badana ay qofka soo celiyaan emailkiisa iyo magaciisa wakaa halkan laftigeeda wuxuu kusoo qorayaa magacii wixii ahaa jaamac emailkii wakaa waxyaalo security la xidhiidha jiro meelahan ku jira aad iyo aad ba mar labaad ugu mahadsantiin daawashadiina saaxiibayaal casharkan casharka xiga intaan ku kulmi doono asalaamu calaykum